inaad noqoto taajir keliyaadoo ka qoslinaya dadka iyo weliba inaad noqoto midka loogu daawashada badan yahay marka noqoto barnaamijyada TV-yada inaad noqoto qoraa sidoo kale inaad iibsato channelad badan kuna guuleysatay 17 bilood wax ka badan maaha wax sahlan qofka in maanta qaada dhigi doona waa Steve Harvey. The name of the people again? Ndebele. Ndebele. Ndebele, yes. In Ndebele. Yeah, I can take you there. Yeah, where is it? Ndebele. It's in Mpumalanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magaciisa oo dhammaystiran waa Broderick Stephen oo na yaqaan Steve Harvey. xilliga uu dhashay January 17 1957 da'diisana haatan waxa lagu sheegaa 65 jir. goobta uu ku dhashay oo West Virginia, Mareykanka. waxbarashadiisii Greenville High School baa la sheegay inuu ka qalin jabiyay. wuxuu qabtaa wadaadihii TV way sidoo kalena waa soo saara barnaamijyada TV-yada waana jilaa qosliye ah sidoo kalena waa qoraa. wuxuu daadihiyay barnaamijyo kala ah The Steve Harvey Morning Show, Family Feud, Celebratory Family Feud iyo barnaamijyo kale oo aad u fara badan oo gaaraya 7 barnaamij. wuxuu waayihiisa ka soo bilaabay qosliye waliba xagga masraxa ah horaantii 1980 kadib waxa uu daadihiyay ka noqday barnaamijka Showtime hadda Apollo kadib waxa loo soo bandhigay inuu daadihiyo barnaamijka The Original Kings of Comedy. kadib jiridii barnaamijyada waxa uu ugu dambeysay masrax oo dadka kaga qosliyay ama stand-up comedy waxa la dhaho 2012. Harvey buugaag ayuu qoray sidoo kale waa qoraa. buugaagta qoray waa ilaa 4 buug baa la dhahaa. buugaagta hadaba loogu iibshada badan yahay waxa ka mid ah Act Like a Lady buugga la dhaho iyo sidoo kale Think Like a Man kuwaas oo soo baxay sanadii 2009. 2017 Harvey waxa uu aasaasay Steve Harvey Global waana shirkad madadaalo ah waxaana soo saartaa barnaamijyada madadaalada waxaana la yiraahdaa East 112. waxa uu maalgeliyay lana wareegay HDNet wa TV. You're Abraham Lincoln? Yeah. Wow. So, why do you love Abraham Lincoln so much? He believed that all men are created equal. He fed the cat with a gold fork? Yeah. HDNet la dhaho oo ay weeliso Anthem Sports iyo qaybta madadaalada. isaga iyo xaaskiisa Majoria waxa ay asaaseen Harvey Foundation. kaliya ninkani kuma koobna inuu dadka qosliyo hantina uu ka sameeyo sidoo kale waxa uu leeyahay foundation ururkaas oo wax faa'iido doon aan ahayn diiradana saara waxbarashada dhalinyarada. waxa uu ku guuleystay Emmy Award 7 jeer sidoo kale ninkan awaardada uu haysto 17 award ka badan ayaa la sheegay inuu ku guuleystay. Harvey markay aynu taariikhdiisa oo kooban sida uu dadajino 2016 ayaa waxa uu qaatay honorary doctorate degree waana jaamacadda Alabama State. Harvey waxa uu ku suntay qosolka inta badanna waa la yaqaan waxaan oran karaa waa ninka ugu caansan xagga barnaamijyada TV-yada ka baxa caalamka oo dhan iyo gaar ahaan Mareykanka aadka looga jecel yahay.